maalintii toddobaad oo isku xigto Israa'iil waxay sii wadaysaa godoominta ay ku hayso waqooyiga marinka Gaza, gaar ahaan xerada Jabaaliya, iyada oo ka hortagaysa in la soo geliyo wax cunno ah ama gargaar caafimaad ah. 200 oo kun oo Falastiiniyiin ah ayaa ku sugan Jabaaliya, sida uu sheegay wariye u shaqeeya Al Jazeera, waxaana hadda si weyn loogu hanjabay duqeynta Israa'iil ama inay u dhimanayaan gaajo ka dhacday bartamaha Gaza iyo burbur ku dhacay bartamaha Gaza. Tani waxay imaanaysaa iyadoo ciidamada Israa'iil ay godoomiyeen guud ahaan waqooyiga marinka Gaza, kaliya ma ahan Jabaaliya, laakiin sidoo kale waxay godoomiyeen Beit Hanuun iyo Beit Lahiya. أيضا أن تتزود لا بالوقود ولا بالمستلزمات الطبية، وكل ذلك سيؤثر على واقع المواطنين هناك، حيث أكثر من 200,000 مواطن يتواجد في تلك المنطقة، وربما في أي لحظة من اللحظات نودع منهم الشهداء نتيجة أنهم ربما يموتون إما من القصف الإسرائيلي أو من الجوع ومن نقص المياه. ولذلك أمام هذا المشهد الصعب والمأساوي الذي تعيش جباليا ويعيش المخيم بشكل كامل، نطالب المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية أن تقوم بواجبها الإنساني من أجل حماية من تبقى من مواطنين هناك وما زالوا على قيد الحياة.